بسم الله الرحمن الرحيم كسر دوّا في waxaan waraysi kooban la yeelanaynaa maxamed shire isla markaasina ka sheekeynaya dhacdo uu kala kulmay libaax saacado kooban ama saacado fara badan ay isaga iyo libaaxaasi soo fadhiyeen ilaahay baana mahad iska leh subxaanahu wa tacaala ina abuuray islaamka naga dhigay ana shaqay baa mahad iska leh intaa ka bacdi hadda hawshaadu weydiiso waxa jiray waqti anoo nin dhalinyaro ah oo waliba magaalo ka tago 14 jira ayaan waxaanu helgeel jiray geel baan xirgeynay geelaan xirgeynay geelal badan bay ahaayeen waxaanu tagnay meel ay aho la hoteeli candaqoys oo dharkeen geeyo u dhow dooxa ayaanu geela la joognay waxaanu ka cabnaa ceel yaahel iyo ceel iyo arcad ee labadaba hadba geelu markaan yaahel biyo ka yaraadaan waxaanu ka cabi jiray ceel yaahel halka marka mareysay geela waqtiga waa adkaaday hala waxa jira geel nirga dheer watay yaryar dabadeed nirgihii ay socon waayeen oo loo baqay inay hadhaan maadaama uu laba habeen saddex habeen geel uu sii dhaxayo biyo doonayo marka waxa la sameeyay magaalada xidhxidh oo halkaan ka soo aroorana waxoogaa u jirta ayaa yaantii dambe waxa lagu rabay geel dhowr iyo 10 geela dhowr iyo 10 ka barkad biyo looga iibiyay markii barkad biyo looga iibiyay aniga nin kale oo la yahay Faarax Maxamed Ducaale waan adeer wahay oo isagu nin weyn oo dhowr iyo 20 jira aniguna 14 jir baan ahay marka dada ayaana laga tagay markii laga tagay isagu magaalada ku hadhay galabtii markii geel cabay geel baan la dareeray waxaan mariyay wadadii aan ka soo aroori jiray wada aan ahayn bugeel ila maray saas kula geel xagga udu geel weyla taray wadadii wada aan ahayn bula maray habeenkii markay gabar ku dhacay oo soo dhacayo isagiina aan ogahay inuu wadadii marayo dee geel soo mari jiraan isla ogeen laakiin aan wada kale oo qalad geeli mariyay ayaan habeenkaasaan ayaan markay gabar ku dhacay gudina waa watay geel ma xaro ooday waa hala dhowr iyo 10 in ragawta markan xero ooday geeljiru sameeyay had iyo jeer marka meesha ama colaada ka jirto ama uu baqayo wuxuu sameeyaa geel xeradiisa inta geelasha saas oo kale xero loo dhigo halka xero loo dhigo geeljiru dhexda seexda oo geelasha dhexdooda nirgahana halkan laga dhigaa galabta anigu habeenka kaliya baan ahaa geel xeraan soo ooday nirgihiina xeraan u soo ooday xeradii aan soo ooday baan anigiina ardaageen seexanaya ka sameeyay nirgihiina ka sameeyay waa kaligay nin yar baan ahay meesha waxdadii ma yaalin habeenka uu iga maqan yahay dabadna habeenka waxaa ii soo dhacay waraabe kaligana waa hay waraabe markuu soo dhacay waxaan arkay geeli baa booday waraabe ku dhex jira waraabe markuu dhex jira markaan arkay godin baan wato godintii baan la booday waraabe baan ku dhuftay banaanku booday waa ka daba booday mid kale banaanka taagan waa ariyay habeenka waxaan islaan waraabe aniga dawacada igalama duwana waraabe aniga dawacada igalama duwana maalintii subaxii way salay halkaan geeli ka kaxayn leen xeradii ka qabasan loo xidho waniyo halkaan geeli loo dhow geelashi min halkaan ku sugaynaa halkiina iska joogaynaa intaan geeli inoo imanayo geeli badnaay de naga aroortigay halkaan joogaynaa marka de meel caanana buu qaaday caanana de waa iibsanayno geel caanana waa ka qaadanay tuuladan had iyo jeer meeshaan ku socnaa qorfay ahayd noodanay xerada noodanay halkii meel wadada dhinaceedii geelashin lagu soo marayaan ayaanu degnay dadna xeraan noodanay marka waxaanu sameynay halkan geeli xeraan halkan uga oodnay nirgiina halkan uga oodnay anaguna halkan kala saxnay marwadiyo saasi horjeedo xeradii geel waatan tiin nirgahana waatan anna halkan kala fiirna halkan dab baan noogu shidan habeenka ayaanta aanu sunnibin wadan ku saxnay habeen labaadkii markay ahayd ayaanu saxnay markaan saxnay libaax doola oo aarax oo wadada haya libaaxu hadii jeer wuu mudaa wuu tagaa oo wuxuu doonaa adigu waxa dhici karta intuu hawd ka yimaado uu dhulka durdurada aado iyo biyaha oo doola yaa markuu arkay
ilaa wadadii buu hayaay ayuu nagu soo lexday wadaduu nagaga soo bayray halka wadadii deenu dhinaceeda geel nagu xariisay waa meel cidla cidinaba joogto marka nagu soo lexday halkan maray anaga cagahayagii anaga iyo dabkii waan kala dhex maray halka cagahu noo yaaleen ayuu saa maray markii dambe raadkiisa aragnay markuu saa maray markuu anaga saa noo dhaafay xeradii geela waan hurudno dhinaceedan uu dhaafay nirgiyo halkan ku xariisan ayuu intuu halka istaagay ma dhicin la waa libaax buu nirig intuu halka qabtay ayuu halkaas oo kale u tuuray markuu tuuray digti iyo geeliday ayaana boodnay isagu nin weyn baa hada wiiga horeeyay markiiba markuu ka yuro waa ka riday markuu riday wuxuu war waa libaax dabka iishid waxyaabaha libaax had iyo jeer lagaga eerto waxa kamid ah dabka isla markiiba isaguna markaa neefki markuu ka riday libaaxina halkan noo taagan yahay neefkina halkan uu yaalaa xirada waa ka soo tuuro halkan uu yaalaa geelina waa diday wuxuu war waa libaax dabka iishid marka aniguna waa ka soo dababooday markii waa libaax dabka iishid baa noqday dabkiiba markaa waa shiday markaa shidnay dabkii waa la soo guuro halkuu taagnaa libaaxuna xaggan dhinaca ka taagnaa neefkiina halkan yaalo geelina oogsaday baanu dabkii ku shidanay markaanu dabkii shidanay oo libaaxina halkaa noo soo taagayo si fiican noogu muuqdo geelina taagan iyo aanu wala si wali xeradii ka bixin neefkiina halkan yaalo anigu marka neefka raja nagama hayso oo markiiba intuu halkaa qabtay qoorta ayuu saa u soo tuuray banaanka u soo tuuray dabeedna halka afooyintaasaa kala baxday isagu kaas markaaba waa dhintay haa dabeedna markuu halkaa maraysay wuxuu war dhegeyso dee waxaanu nahay niman dee meeshii taliskii waa geeli iyo wixii baanu nahay odagtoo ciidanka marka lasoo weeraro haddii taliska laga weeraro oo laga qabsado wuu fiidhaa midna meel buu ka duulaa dabeedna wuxuu war dhegeyso anigu geelaan xaggaa ka celinaya ayuu naga daadanay xagga dambe inta naga wareegaan joo odhanayaayo naga dadaya adiguna libaaxa neefka ka celiyo ها هرتاجنو اللي بحر هرتاجنو ونيف كعيل حدو نيف كاتشيتو قالوا أنا قد ذيا حدي قالوا أنا قد ذي وهابين قد عرا ومذو إنك سي سام تمتها ترى ما صدق هذه بركي مالها سا أي مالها تهي إلى صدق هذه مالها تهي وهابين مذو حدي قالوا أنا قد ذي مالها نكر هذه النمرة وكلا يعيا اللي ما حنا دمر كوافير سنة يا مركا ده وحنو كم تدينا إننا نستفعله إننا هي استفعله أو لباحة إسكت دفعنا أو جيلا أنت كله باغ النوع أي شوغان نقدين أنا تدينه هدي لا تدو قبل تهزو حيس جيل تدي ماله رجستيري خدام ماله دمر مقول سده هذا اللي شيء ماله دمر سكور سنة مركا وياه مانري مركا هل كان ضبط ناقشيدا نيف كنا هل كاسو كل بيالله هذا كاسو هرشيدو سوقو نفتك بحذي هل كان ضبط ناقشيدا هل كان هذا فردين اللي بحبات تاجن أنا أقول هل كان ضبط كدين عيسى أنا تاجني مركا قري دبل قاتي قري دبله أيان قاتي مركا قري دبل كلا قاتي قولوا لي لباح وحليه بلبل الرع حدي دبل قبصده سيد عاوزك الرف بورنايا مركا أنتو دب أركيانو كوكو صادعو وهم الحالتي مركا قري دبلان قاتي وايو waxaan u kalifaysaa inaan saddex nin baan meesha noqonay laba nin oo geeli haysta iyo libax saddex nin baan nahay anagu laba aan isagana waa nin libax wax ka soo noqday waa nin wasirtaaga dabeedna marka anigu qori dablaan qaatay libax iban gacanta sida yurtaasan hayaa isagu halkan uu soo taagan yahay libaxa waxyaabaha kamid ah haddaad iska hortimaadaan haddaad in yar ka leexiso waa kugu soo boodaya oo in yar ku arko inaad baqayso ha ka baqin haddaad libax ka hortimaadaan yar baa tahay haddaad libax aragto waad ka hortimaad haddaad wadada iska timaadaan waa dhici karta inaanu kugu soo dhicin wadadu kuu fadhiisanaya wadada markuu kuu fadhiisto haddii aad baqdo ma istaagto waa ku cunaya laakiin haddaad u soo socoto aanad ka leexan indhahana ka dubin dhinacaanu wada waa ka leexanaya laba saddex jeer markuu aad aragto inaanu ka harayn inaad ka baqayn oo arko marka dambe uu ku daba gelayaa iska ka daba gelayaa
meeshaad ka socoto ciidan bug ama inaad seexato ama inaad cid dula gasho oo ku dabagelaya marka libaaxii halkii soo taagan yahay marka go'aan de waxaan kala qaadanay ninkii go'aan baan kala qaadanay isna geelay inaanu diidino xagga ka celiyo aniguna libaaxa aan neefka intaan ka celiyo waa aanu geelu naga didin isaga rajo kama qabno aanu neef ka qaadan hadduu meesha ama meesha ku cunaya geel waa didaya ama wuu jiidinaya jiidmada geel didaya dibna anu libaaxi waa sar taagay gacanteeda qori dab la olol ayaan ku qabsaday yur gacanteeda ma noqonayso indhahaygu ma laabanayaan kama baqayo yur isaguna way firaguri guuxaya wasaynta dabada saaleeya aniguna qorigaa dabka aan haystaayo waxaan leeyahay war yur baan le gacantaas ma liiqanaysanayso indhahaygu ma liiqsanayaan ma waxaysmayo dabeedna markaan saas ka hortaagnayn qorigii dabka lahaa markuu iga yaraaday aan arkay in qorigii uu yar yahay waxaan sameeyey gadaal yaan anoo qorigaygii si u haysto sabtii u eegaya libaaxi oo indhihiisii indhahaygu saas u hayaan baan gadaal u baxay gadaal baan u baxay dabkii xaggan aan ka maray neefku ka joogay halkaagaasoo kale ka soo maray qori kale ololaya soo qaatay qori kale ololaya ayaan soo qaatay markaan qori kale ololaya soo qaatay halkii maalimi isaguna wuxuu ii sameeyey waxaa la libaaxo 100 nina waa la xoog nina waa la tab يعني بقول لي بحوق كنت لا لكن حاجة تبته نينك ما تبطنا اسنا وحي سمي مركو إنه أركين استاجي وحبايجا قاعد واي وإيه فرست وها أنتوا فرستي أيو اللي بدأ تشيني لول كي يقرع اللي بدأ تشينه هري وسب أنتوا ساو فرستي وتبدأ لول كديكين أيو اللي بدأ تشينه هري لول كي يقرع سان أبقى أما بوركا أو كعينيو أنتوا إيه صار راعه يقولون طبعا ده أنا وح بوركا وأنا أقول هذا أما تشيستو أما بوركا سواء ده كوحة إنه يسجل الصعدة بوركا إنه يسجل الصعدة هل كي كمان دقائقين ير ماله ملك لما يجيو إيش يسيء إيش إذا هو سيان قعنت إذا ما الله ما نيسو يرتاس مرهيا isaguna labada jeeni ayuu dhulka la dhacaya deedna boorkii waxa boorkii si boorkii inuu indhaha iyo sanka iga galo laakiin waxaan ogahay haddaan limiqsado ama isa boorka iska waxee inuu isaga la socdo laakiin mar kaliya kama suulin inaan gacanteeda iyo dabkiisa war yurtaasaan hayaa saan saas ka hortaagnay ayaa waagi bariyay in waagi bariyay de isaga ogaado markii waagi bariyay dabadna markii waagi bariyay salaada shimbirihii juuq yeelahayna dhawaaqeen ayuu intuu iska dhaqaaqay halkaas oo kale iska maray marka sidaas ayaan habeenka qisaas u dhacday ninkii kale degelun buu xagga ka joogay ismaanaan helin aniga libaaxun baa ismudanay ninkii kale ismaanaan helin de markii waagu bariyay eesh waxa qabatay libaaxii naga tagun bisna xaggii ka soo wareegay baan meeshii isugu nimi golihii geela de geeli baan maalay waana ka haysanay markaasaan meeshii ka guurnay neefkina isagoo de meesha xalay libaax nagu galay libaaxina waxaan ognahay inaanu fogeyn waayo subaxnimo naga tagay maalintii libaax ma socdo meelaha meel dhow buu hurdanaya waxa dhici karta habeenkii soo noqdo marka saasaan uga guuray marka de qisadaas yaa anigii libaaxa waqtiga anoo nin yara oo 12 jir 14 jir baan ahaa marka aniga libaaxaas ismudanay taariikhdana way ahayd markaan arkay dad badan oo libaaxa ka sheekaynaya baasi waa balaarta bal inaad adiga libaax habeen isasheen isna hortaagnaydeen libaax oo nina oo gurxamaya oo dabada saa u shabeelinaya saas le dabada dabuu leeyahay sida looda kala saas dabadiisa labada dhinac isku la dhacayaa weey marka xataa waa miliqsanaya saa leeyahay oo isagoo doonaya inuu ibajiyo laakiinse waxaan aaminsanaa in aan libaaxa aan u baqin wax baqadinayna in ima gelin marka
ما إنا بقينه وحن كفكري لح جلاد نفط سرعانه تجيل هذه اللي جيلي ونمكي واللي بحبان هلا جي وأنا عرّي جيلنا نجعرر تي وحرنا يتم حاهدين مركز بحوي إنا نستفعنه اللي بحنا كدفعنه ويا حوالها دي وحلو وتبهل كدي لوجا عرّيه دي الله موتين أنت ما waxaa jirta maxamed shire in dadkan dambe ama deegaanadan uu libaax imika ka guuray isla markaasina aan joogin maxaa saameeyay maxaase libaaxaasi uga tagay dhulku waxa weeye dadku inta waa ka yaraa markaan waxana qaaday dadku inta waa ka yaraa dhulku oo deegaan badan ma jirin dhulkuna hawd buu ahaa dadkuna markay hawdka aadaan waa ka soo noqon jireen dhul biyaha leeyma jiray libaaxa iyo maroodiguna waxay ku jiri jireen hadii ku noolaan karaan dhulka hawdka ee cidlada bay ku noolaan karaan iyo durjoogta ku nooleed marka libaaxi waxa dabar gooyay dhulku gali jiro dhan waxay noqdeen deegaan dhulku degi jiray oo dhan wuxuu noqday deegaan dabadeedna deegaankii markuu noqday waxana waa la laayay waxana waa qaxayo waa ka deynta Soomaaliya wadaafay Kenya galay daawadayalkaasi waxa uu ahaa maxamed shire isla markaasina aanu ka wareysanay dhacdo isaga ku dhacday oo la kulmay libaax habeen aad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.